markay duurkii ka bursadeen hurdada u diideen inay ladaan iyo inay seexdaanba u diideen haatan waxay ka shaqaynayaan bilicda iyo horumarka. kuwani waa ciidanka kumaandooska danab hadda kuma sugna goob dagaal oo ay kula dirirayaan cadowga balse waxay ku sugan yihiin istaadiyo muqdisho oo ay ka eryadeen nabadiidka sannada ka hor. wejiyadooda waxaa laga dheehanayaa farxad iyo xamaasad maadaama ay ciyaar ku daawanayaan goob ku leh taariikh islamarkaana looga sheekayn jiray siday ahayd berisamaadkii. qaarkood halkan ayay ku ciyaari jireen yaraantoodii iyadoo u leh xusuus gooniya. sidoo kale qaar ka mida ciidankani waxay qayb ka ahaayeen dagaaladii looga xoreeyey garoonka iyo goobaha ku xeeran cadowga. xaqiiqdii maanta aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay maanta waa maalin aad u weyn qiiradeedana maaha mid oo la soo koobi karo maxaa yeelay muddo badan aan moogaa barxaddan waxaan ku ciyaari jiray anoo yar oo 6 jir dow jira kabacdii waxaa qabsaday maleeshiyaadka cadowga ee ummadda Soomaaliyeed. maanta waa faraxsanahay anoo mas'uul ah oo ciidanka oo kumaandoosta danaba in aan inta imaado booqasho aan daawado aad u faraxsanahay. waxaan u mahadcelinayaa madaxda dawladda oo qaqaabiday inay habeedo oo isku maamustay aad baan ku mahadcelinayaa meel walba joogtaan. anoo ka tirsan ciidanka kumaandooska oo meeshan aan moogay muddo badan oo maanta booqasho u maaday aad waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed horumarka aan gaarnay aan faraxsanahay. waxaan ku faraxsanahay wili meeshan cadowgii laga xoreeyey oo aad maanta farxadii waxaan ku soo koob lahayn. damaashaadka gudaha garoonka marka laga soo tago ciidanku waxay qayb ka qaadanayeen sugidda ammaanka sidoo kale waxay u dhimrinayeen dadka shacabka ah iyagoo kala qayb qaadanayay farxadda damaashaadka munaasabadda 1 Luulyo ku aadan. garoonka istaadiyo muqdisho ayaa waxaa la dhisay sannadkii 1978. garoonkana ayay dad badan waxay ku tilmaamaan inuu yahay jawharta astaanta waa nabadda. marka dhagihiina ay soo gaadho istaadiyo muqdisho waxaad xasuusanaysaa ama way xasuusanayaan dad badan oo daawanaya balse dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhalatay burburkii kadib ma xasuusan karaan ama ma garan karaan istaadiyo muqdisho soo yahay. waxa uu ku burburay dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay meesha uu ku yaalo oo ah goob baaxad leh oo istiraatiiji ah ayaa keentay inay argagixisadu hoy ka dhigato isla markaana u isticmaalaan toogashada dadka aan waxba galabsan iyo tababarka maleeshiyaadkooda. kooxaha arxanlaawayaasha nabadiidka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waqti ka talin jiray laakiin umay ogolayn inay halkan ku ciyaaraan dhalinyaradani. umay ogolayn in bulshada Soomaaliyeed ay gudaha u soo galaan garoonka iyagoo ay ku jiri jireen horjoogayaashooda balse maanta way ka duwan tahay xaaladdu sidii hore. waxaa ku ciyaaraya dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan iyagu soo gaarin inay waqtigan oo kale saano kale ku ciyaaraan maadaama ay dhasheen burburkii kadib. garoonka ayaa waxa uu ka tirsan yahay tuulada ciyaaraha oo ka kooban garoomo dhowr ah oo isdhinac yaala kuwaas oo loogu talagalay in lagu qabto ciyaaraha kala duwan. waxayna kala yihiin qaybta dabaasha, kan kubadda kolayga, kan miiska iyo xitaa qaybo loogu talagalay ujeedooyin kale. garoonka kubadda cagta waxa uu markiiba qaadi karaa wax ka badan 40,000 oo qof. waxa uu leeyahay dhammaan tasiilaadkii garoon loogu talagalay sida leerarka waaweyn ee suuro gelin kara in habeenkii lagu ciyaaro. gudaha istaadiyo muqdisho saa arkaysaan daawadayaal waxaa ka socota in ciyaar u dhaxaysa labada kooxood ee Horseed iyo Banaadir. ciyaartaasoo lagu furay garoonka waxaa furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dawladda Federaalka Soomaaliya. daawadayaal garoonkani muddo waxaa ku socotay dhismo. dawladda Soomaaliya ayaa waxay juhdi badan gelisay dhismaha garoonka iyo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed u heli lahayd goob caalami ah oo ay ku ciyaaraan. ciidanka kumaandooska danab ayaa diyaar u ah in gacanna ay cadowga ku eryadaan midda kalena kaga shaqeeyaan horumarka dalka iyo gacan qabashada bulshada Soomaaliyeed.